socota cabdikariin dadka sharaxaya waxa ka mid ah ra'iisul wasaarihii xasan cali khayre oo xilligii adigu dhibaatada ku gaaraysay ra'iisul wasaare wadanka ka ahaa maanta doorashada socoto mucaarad iyo muxaafadba dadku waa kala qaybsan yihiin xasan cali khayre inuu sharaxo saad u aragta adiga horta xasan cali khayre waa muwaadin Soomaaliyeed xaq uu leeyahay hadduu aaminsan yahay inuu wax qaban karo inuu sharaxo wuxuu la mid yahay kuwa is sharaxay marka waxa ka hor istaago oo aan leenahay sababahaas ka hor istaagayna hadda ma aragno marka uu is sharaxay taasna isaga ka dhalatay laakiin qayb uu ka ahaa dadkii dhibaatada geystay waxa aan ka sheekeynayno nidaamkan dhibaatooyinka la tirsanay oo dhan dadkii geystay wuxuu ahaa ninkii ugu sareeyay dawladda xukuumadda horta dambiyada dhacay way badan yihiin dambi qofeed iyo mid umadeedba qaranka Soomaaliya runtii shacbigiisa laga galayba way dhaceen dunuubta tirada badan ee dhacday markaynu si fiican u qiimayno dalkan waxaa jira qof wadankan loo doortay shacbiga Soomaaliyeed baarlamaanka ay soo doorteen sidii sharciga ahayd qof bay u igmadeen ilaalinta qaranka Soomaaliyeed qof iyo qoys iyo qaranba inuu ilaaliyo isaga ayaa cod la siiyay isaga ay ahayd mas'uuliyadiisa inuu xafido shacbiga Soomaaliyeed qofka muwaadinka ah inuu xafido dambi kastoo dhacay marka dambi kastoo dhacay waxa iska la qaybta koobaad yani waxa mas'uuliyadda koobaad waxa iska leh mas'uuliyadda koobaad dunuubtii dhacday aniga ha gaadho ama shacbiga Soomaaliyeed ha gaadho ama dawlad goboleedyaha ha gaadho mas'uuliyadda koobaad waxa iska leh madaxweynihii ummadan dooratay dadka intiisa kale dekireeta madaxweynaha lagu soo magacaabayay lagu keenay lagu ogolaanay baarlamaankana lagu geynay marka mas'uuliyadda koobaad waxay fuulaysaa oo lagala xisaabtamay oo iska leh mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya yaa iska leh ninkii la cali khayre hadda waa musharax wuxuu rabaa hankiisu tusaya uu u diyaar garoobay inuu noqdo madaxweyne mad Soomaaliyeed eedahaas badan la galay way fiicnaan lahayd isagu wuxuu wax ku leeyahay iyo intay dhan tahay inuu isagu ummad Soomaaliyeed u sheego way fiicnaan lahayd oo yiraahdo waxa saa dhacay waxaan ku lahaana intaas yay ahayd halaga raalino bini aadamku waa khaldama waa la gafaa dambi waa dhici kara kan noqoshadiisa la soo diray laakiin waa geesinimo u baahan tahay waa geesinimo waa in qof la helo dhiirad oo geesi ah oo wixii khaladaha uu leeyahayna qaata ummadiisana kalsooni ka raadiya sida waa inuu masraxa ku soo istaago aad bay sharaf ugu tahay hadda soo aragta Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu tagay oo yiri mataqaana wixii dhacay 12 December weerarkii guriga lagu qaaday waan ka xumahay raali gelin ka sii arintaas soo aragtaa inuu xasan cali khayre qaaday aad baan u bogaadinaya talaabada uu qaaday aad baan u bogaadinaya shaqada inuu qabtana way ah waa sababta aanu leeyahay waxyaabihii dhacay wuxuu ku leeyahay isaga ka timaado heer waxaas aanu wixii dhacay waxaas aan ku lahaa halaga raalaha adigu wali ma kula hadlay maya qalbi dhagax qadiidiisina maxaa aaminsan tahay qadiidada inuu ku lahaa saan kuu sheegay qadiyadaydu waa qadiyad waxay ahayd horta jamhuuriyadda Soomaaliya ay gashay dawladda federaalka Soomaaliya gashay waa qadiyad foolxun oo dhaawac culus inoo geysatay saan kuu sheegay marka mas'uuliyadda meel bay ka bilaabataa meel bay ku dhamaataa waxay cidii la rabay aniga inay difaacdo cidii la rabay tasuurka wadanka inay difaacdo cidii la rabay midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay difaacdo ee loo igmaday madaxweynaha runtii ko sidaas ayaan waxaan kugu sheegayaa inuu yahay qofka mas'uuliyadda koowaad la madaxweynaha ninkii la yiraahdo markii baarlamaanka golaha wasiiradu maana ku fadhiisanayay xog yaran helaynay baa jirtay hadday run tahay iyo hadii kale waa inay cadeeyaan khayre iyo ragiis muddo markii golaha wasiiradu ay fadhiyeen qodobkan la isku mari waaye
argagixiso cabdikariin sheekh muuse iyo ururkiisa aan ku shaabadayna argagixiso muddo markii la ismari waayey cali khayrana wax badan meesha asaga shir gudoominaya fadhiyay asaga ku xigeenkiisii mahdi guuleed yaa istaagay wuxuu la soo baxay warqad buu jeebka kala soo baxay wuxuu yeedhiyey qorshaha wareejintu noocu yahay wuxuuna yidhi doodi kama furna fiir doodi kama furna ma ra'iisul wasaaraha isla ogaayeen ma waxay isla ogaayeen madaxweynaha isla ogaayeen kulay isla ogaayeen waxba meesha ka jira marka haddii uu cali xasan khayre isagu la soo bixi lahaa oo uu yeedhin lahaa mahdi guuleedna eed kuma lahaadeen cid kalena eed kuma lahaadeen go-aanka iyo gacantaaga waa la wada yeelan lahaa laakiin mas-uuliyadda iyo maamulka yaa lahaa waxaan leeyahay marka waxaa weeye aniga iyo ummadda soomaaliyeed baa dhibaatada foosha xun ee la geystay waa dembi culus oo la galay mas-uuliyaddeeda koobaadna cid bay fuulaysaa cid kasta iyada xaq u leh marka wixii kale ay ku leedahay maxay ku bedelatay dowladda Soomaaliya dhiibista qalbi dhagax iyo ONLF in la wargagixiso maxay ku bedelatay oo bedelkeeda heshay wax allaala waxaan khasaare iyo guul darro iyo sharaf dhac ahayn oo ka faa'iiday ma jirto markii ay waxaan sameynaysay wax ayna ka fiirsanin oo argagixisa ku dhacday way cabsadeen haddaad ninkan haysaan Ethiopia idin burburin Ethiopia idin qaban France xilka joog meeshii yani dareenkaas ayaga markii ka muuqanayay isla markii muddo yar kadib Ethiopia isbedel baa ka dhacay fashal baa ka dhacay Soomaaliyana kacdoon baa ka dhacay Soomaali guud ahaan kacdoon baa ka dhacay kaliya waxay faa'iiday waxa weeye waa fashal iyo ceeb iyo burbur iyo karaamo darro iyo in aan ninka odayga mar dambe aan ummadda Soomaaliyeed wax ku aamini karinba wax laala wax lagu aamini karo inuu wadaniyadu sheeganay aawe cabdikariin waxa jirta falcelintii shacabka Soomaaliyeed ay sameeyeen dal iyo dibad meel bay joogeen diibistaadii maxaa dareentay dadka Soomaalidu maaragtay kaalinta ay ka qaateen halgankaaga horta waliba ducaa la waday inta ducada masaajida laga ducaynay anigu waa aqbalay anigu xabsiga ku jiraan arintan waxa ay sheegay sirdoonka Ethiopia gacanta ugu hay waxay u yiraahdeen shacbiga Soomaaliyeed meel uu joogay buu kacay waxay qiyaaseen oo iyagu dhaxdooda aamineen inuu jiro organization Soomaali oo dhan ka dhex diyaarsan oo hadafka aan ku halgamaynay xambaarsan oo dadka Soomaaliyeed soo diyaarinay inuu jiro maxaa yeelay Soomaali oo 40 sano isu heelinin oo wax wada qabsanin oo dagaal wada gelin oo siyaasad isku jaha u socota wada cabirin hal mar inuu dareenka muujiyo runtii Ethiopia nimankii ahayay iyo sirdoonka iyo dawladooda waxay ku riday niyad jab ay ku riday iyaga ay sheegay meesha dalku marayo warbixin bay iga siiyeen markay ii sheegeen waxaan gartay dadkayga Soomaaliyeed inuu ahaa dad istaahila inaan xabsi u galo inuu ahaa dad istaahila inaan u dhinto waxaan u hayaa dhamaanteena u haynaa ummad Soomaaliyeed abaal aan soo noqonayn waxay isku xidhay burjigii iyo karaamadii iyo dhalashadii iyo rixmkii ummad Soomaaliyeed arin isku xidhay bay ahayd arintu cadawga ummad Soomaaliyeed inay jirto ummad Soomaaliyeed oo isku xidhan oo markii loo baahday isu wada heelinaysa inay jirto oo lagu ciyaari karin oo qof iyo koox iyo dawlad shisheeye midna ayna ku ciyaari karin inay tahay bay cadawga ummad Soomaaliyeed يتوصي شريعة عرمها مامل في السياسة أياد نبي نقول كنتي شعبي الصوماليات وهلي لها دولة حنلة وأود له هلي لها ما أنت نقول لها بال ذهب وجيس كان أفريقيا يدوني ده بكجلي لهذا